يا انسي جني انا كرو هذا الوريا انسي جني انسي جني يا اخي جنياتين هل جني يلا بينسيا kulanti wacan daawadayaal waqtigu haydin wacnaado meel kasta oo dunida ka joogtaan maanta waxaan ka hadli doonaa dadka meelaha cilaajka la geeyo oo xanuuno horle ka soo qaada markii ay goobta tagaan sidoo kale arrimaha la sheegay ee culimada Soomaaliyeed ka hadashay waxa kamid ah in xarumaha cilaajka dadka ay ka soo qaadaan cudurro kale isla markaana caafimaadka ay u raadsadaanba aanay ka soo helin balse waxaan ka hadli doonaa maanta haweeney kamid ah haweeneyda la geeyay goobtaasi ayaa sheegtay bilcaantaasi markii la geeyay goobta inay ku caafimaaday bal arrintaas ayaan si qoto dheer uga hadli doonaa balse intaan u gudagelin barnaamijka oo faahfaahsan halkani waa Glangal News haddii aad ku cusub tahay channelka ayna tahay markii kuugu horreeyay halkani waxaad ka helaysaa wararkii ugu dambeeyay gudaha iyo dibadda iyo wixii ka dhex jira bulshada dhexdeeda fadlan subscribe saaro calaamada gambalelkana iska hilmaamin si aad u noqoto daawadaha ugu horreeya ee dhageysta barnaamijyada iyo xogaha aan baahino aan gudagale haween kamid ah kuwa Soomaalida ee la geeyay goobaha cilaajka ayaa la sheegay inay sixirtay eedadeed sidoo kalena ay ka reebtay shaqada waxayna ilmuhu ka soo dilmayeen sida ay sheegtay 9 sanadood haddaba daawadayaal barnaamijka ayaan kugu soo gudbin doonaa muuqaalka koowaad adinkoo ku dhageysan doona qisadan xanuunka badan هل سحر وهل نيل يا سحري انا قديت ناقد اللي غواي يا ناقد اللي gabadha وريا سؤالك ويديga jawriya eedadeeda tahay gabadha maxaa tahay eedadeeda tahay halkaas gabadha eedadeeda tahay ya ma eedada abeeda la dhashaatay wariya adeerkooda ya dadka inta badan waxa ku dhex jira kuwa aad ehel tihiin isla markaana kuugu dhow qaraabadaada waxaana dadkaasi yihiin inta badan dad cadow ah waxayna noloshaada inta badan ku qoonsanayaan inaad noqoto qof horumar ka sameeya waxay muddo 9 sanadood ay ka dilmayeen carruurta ay ahayd qof ehelkeeda kamid ah waxay la joogtay naagtii sixirka u soo maleegtay sidoo kalena waxay ka reebeen shaqadeedii maadaama haweeneydani ay ahayd haweeney hilible ah sidoo kale waxaa la sheegay in isha sababta ay u raacday ay tahay markii ay shaqaysatay ninkeedana aysan bil weydiin arrintaas ayaa kamid ah waxyaalaha la yaab kale oo lagu arkay maantay meelaha cilaajka adeerka barta qabaay qabo habarta odayga qaba ku qaba marka hooyadeeda lagu la qaba haye kadibna waa sixirtay yaa sixirtay gabadha sixirtay habarta sixirtay maxaa u sixirtay habarta arrinta la yaab kale waxay tahay in haweeneydan markii la sixrayay ee la sheegay inay ka hor dhali jirtay naagta kale ee sidaas loo sixray ee waxa la sixrana waa gabadhan aad u jeedaan hooyadeed ee naagta sixirtay ee maamada gabadhan dhashay markii la weydiiyo waxay leedahay waxaan u sixray way iga hor dhali jirtay يعني heerkaas in cadaawada gaartay in qof maaragtay oo iga hor dhali jirtay ama waa iga hor dhali jirtay ay ku sixirto siisan awlaad u helin waxay noqotay arintaasi mid cajiiba runtiina dumarku inta badan waa kuwa qalbi caruura waxay leedahay sababta u sixira waxay tahay way iga hor dhali jirtay bal dhageyso qofkan sidii u hadlayso waa qofka hadlayana ma ahan gabadha waa qofkii sixirka soo sameeyay dhageyso wacan يا سند كسو ويكا هور دشا سبحان الله arinta la yaab kale waxay tahay muddo 5 sano ka hor ay waxay leedahay waxaan ka soo dilay 2 caruur oo ay maaragtay oo ka soo meeyday oo guud ahaan ka soo baxay caruurtaasi 9 ka sanadood oo kalena cunug kale oo caruurta ugu jiray ka horeysana wuu soo dilmayay oo maaragtay cunuga caloosha ay ku soo dilmayay markaas dhiiga imaanayay dhiiga ka socday cunugii ma uusan dhalanaynin ayadiina maaragtay yani waqti badan ay ku qaadatay ilaa cunugii heer uu gaaray caloosha uu cidiyo ku yeesho tima ku yeesho asagii uu maaragtay ilka ugu soo baxaano maaragtay cunugii uu caloosha ilka ku yeeshaba ku qangaaro arrintaas runtii waa arrin xanuun badan ilaa hadda waxa marka ay sii taagan tahay in maaragtay qofkaasi 2 bilood hadda gabadhan u hartay in dhasho insha Allah ilaahayna waxaan urjeenaa ilaahay caafimaadkeeda u soo celiyo
5 sano ka hor aad sixirtay mar ilmaha ka soo riday laba mar ilmaha ka soo riday haye marna ilmaha waa ku dhajay laada way ku dhagay marna ilmaha waa ku dhajisay ilaa hadda way ku dhagan yihiin yaa ku haysta caloosha ana ku adaa ku haysta isbitaalay dhakhtar ma la geeyay waa la geeyay maxaa la yiri maxaa la yiri wax ma qabtaa la yiri wax ma qabto goormay dhalaysaa insha Allah way dhalaysaa goorma goorma wariya laba bil kadib ya laba bil kadib waa laba bil awdi ma soo dig bixisa laba bil awdi ya soo dig bixisa laba bil awdi way dig bixisay meeqay dig bixisay 9 bilood way dig bixisay 9 bilood bay dig bixisay laba bil kaalay bal kaalay laba sano wax dhimanna way ilmaha ma nuuxsanaynin haye laba marna man 3 bilood ilmaha ka soo riday marna 5 bilood mar 3 bilood ka soo riday marna 5 bilood ka soo riday ya way hooyadeeda aaway tan waa hooyadeeda ya adaa sixray marka sida halkan aad ka aragtaan maamadii gabadhan darteed loo sixray intaas oo rafaada loo marsiiyey shaqadeedii looga hakiyey ayadii maxaa la dhahayay qoyskeedii uu ku burburay caruurta caloosheeda ku jirtana intaas ay meesha ku cadibnaayeen waata halkan kaga muuqata markasta dadka waxaa ku dhex jira dad cadow ah oo ehelku ah kuugu dhow kaliya waxa gabadhan loo dhibaateeyana waxay tahay in maaragtay yacni qoyskeeda oo hagaagsanaya iyadoo shaqaysan jirtay intaba la dhaafiyo marka dadku inta badan waa cadow ilaahay baa cadowga ka magan galaynaa ilaahayna cadowga naga qabto marka daawadayaal waad ku mahadsantihiin daawashadiina waxaan hadda idiin soo gudbi doonaa bal muuqaalka oo dhammaystiran haddii aad mar kale ku cusub tahay channelka Galaangal News fadlan subscribe saaro si aad uga mid noqoto saaxiibada ku tixan haddii aan dala joogtana waad ku mahadsantahay la joogaaga ya ninkeeda wadna jeclaay ayada wadna jeclaad wadna uu soo dhiibay jinka saar haye naa loo soo gili dhiiga looga dhigay wadna bay jeclayd wadnii baa lagu sixray marka sixirka muxuu dhibaato geystay ilmo ku dhajiyay walaashaas uu dhiigi jawriya ilmo ku dhajiyay koow maxaa kale dhabarka wuu xanuujiyay madaxa ilaa sulka wuu xanuujiyay baba ka soo garin barra ka giliray ya lugaha barra ka giliseen sadaawu siisa lugi barra ugu go'ay haye ilmi xaloosh barra ku jiro oo ka yaraysa daawada siisay haye daawo nooce daawo dhiraadaada siisa xalad saliid ugu dambeysay marka daaraga waa ku wareey haye daawada markii la siisay noqotay caafimaad heshay ilmaha ma nuuxsadeen ma yaxoosh bararkiya ka degay caloosha bararkiya ka degay ya ay maqlaysaa wariya ilmahan caloosha aad ku haysataan ma sii deynaysan si sii deemaysan tan ugu dambeysay bas ma sii deynaysan si sii deemaysan wariya ya wadanena goormay dhalaysaa insha Allah loo dhiman iska daa hadalka badan wariya waa mar Allah bilow iska daa hadalka badan laba bilow dhiman ya goormay dhalaysaa baan ku yiri insha Allah goormay dhalaysaa waa deeni ilmahana waa deeni ma nuuxsanayaan ya ilmaha caloosha ku jira maxaa ku sameeysan ilmaha caloosha ku jira inay nuuxsanina anaga ma disheen may waa jin laakin waa ciiseen ya ay caafimaadkooda maxaa u dhinteen ya maxaa u dhinteen caafimaadkooda wax u dhin malaagay ayada wax u dhinay maxaa u tahay gabadhan ya adaa dhalay ma jirtaa 9 bilood dhiigbaxaysay ya haye maxaa maraaxil ah martay muddo badan aan dhibtoona 9 bilood dhiigbaxay 9 bilood mimi waxa kadeen haye quraansaarkan raadinay markaan quraansaarkan yaa ku soo sheegay war darskeena cunuga keensatay haye quraansaarka raadin oo yaa laga yaabay haye tubka ka arkay mobilka ee haysan haye markaas $10 inta lagu galay $10 isaan halkan $10 lagu galaa lagu dhahay haye marka dama gabadha intii soo baxay $1 way maanta ana soo arkay haye si yaa soo raacida ba joogta ka dhacay waaba kan sixirka ka soo galay diideen maanta ana soo adiga saaxir igam suriya haye maxaa marka ilmihii caloosha ku jira isbedel aad ku dareentay intaas ay jiidanaysaa haye taagnaakay haye abal horsay markaad iimaanaysaa dahayd waa bararsanay aduna waa bararsanay tadawbinka daawada qaadada baana ku noqon haye caafimaad dareentay barkii uu ka degay way ku galayaan hooyadani muslimadda way dhiban tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibka ka qaado cadow aan ku jiran ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka saaro waxaan rabaa marka inaan fariin u diro
waa hooyo dhiban waxaa la yidhi irida waxaa lagu gelayaa $10 lagu gelayaa war aniga $10 miyaan qaadaa $10 miyaan qaadaa weligeyga ma qaadan haddana ma qaadi doono insha Allah tacaala $1 baan qaadayaa malaha dadka dhahay $10 qaadaya waa nimankii burcadiimeedka ahaa waa nimankii tuugada ahaa ee burcadiimeedka ahaa ay rabeen maadaama ayaga $5 hooyada muslimada dhibkan iyo silacan ay ku jirto inay ku dhibanaato silacan sidii uu haayo laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'ala faraj baa u furay ilaahay faraj uu u furay inta u dhimanna ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dhameystiray insha Allah tacaala wariya ay maqshaaniga ilmaha masiideen bisaan ku yiri caloosha hadda waxa jiidanaya waa ilmaha hoos soo deganaya ilmaha hoos soo deganaya ilmaha hoos soo deganaya iska carab mashhuuriya يا كلو كجرا شنو مي مقليسا waxay ka soo raacday adiga qofkii sixirka keenaatay adiga qofkii sixirka keenaatay ay ishaadana ishaadii suuqa ka soo raacday libleeyahay shaqaysanayay ninkaad wax ma weydiin jirin haye meesha ka soo raacday marka ya waxa dhibaato u geysatay ma yaa ilaa shaqada gareebay soo carab bulsi waa taaganahay ilmaha ma sii deynaysaa ma kororiya hooyada shaqada ma sii deynaysaa عربان كوير ماشي هاي غور كيف شوكتا فرتا يا فرتا سكر وريا سكنا بتجلي بوسي بسم الله سكنا شيدانك